wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo safar shaqo ku soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa maanta kulamo la qaatay maamulka kastanka ee magaalada Berbera iyo sidoo kale maarayaha hay'adaha dekedaha Soomaaliland Injineer Saciid Xasan Cabdilaahi ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha kastanka magaalada Berbera iyo sidoo kale maarayaha hay'adaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waa kormeer guud oo stakeholderska dekeda wasiirku ku soo kormeeriyay adeega ay bixinayaan ay bulshadooda u bixinayaan intaas un bahayd in kor loo qaado serviceka ay qabato dekeda guud ahaanba iyo sidii loo hagaajin lahaa barnaamijka Berbera Corridor oo isagana la rabo in insha Allah standardka ugu wanaagsan ee soo jiidan kara customerka in la sameeyo maadaama dekedu ay ka kooban tahay stakeholders fara badan oo kala jaada sidii loo wada shaqeyn lahaa loona wada jaangoyn lahaa umbuha muhiimadda shirku gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay safarkiisa shaqo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire maanta oo salaasa bisha tahay 30 waxaan halkan ku yimi safar shaqo safar kormeer oo safaradii kormeerka awalba lagu iman jiray ujeedadiisuna waxa in loo kuu galo hawshu sidee u socoto habsamada sidee ugu socoto iyo haddii ay jiraan waxyaabo carqalado oo jira waxaan la kulmay shaqaalaha iyaga customka ama shaqaalaha wasaaradda qaarna waan la kulmay qaarna waan la kulmi doonaa waxaan kaloo la kulmay daneeyayaasha hawsha ka socota dekeda oo dekeda DB wada ay ka mid tahay maareeyaha dekeda uu ka mid yahay iskaashatada gaadiidka ay ka mid tahay ganacsatada ay ka mid yihiin marka shirarkan la yeelanay si fiican bay runtii noogu dhaceen waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda iyo daneeyaasha kaleba sida wanaagsan habsimada leh ee shaqada ugu socoto aad buu mahadsanyahay. Kamta Ismail Ali wararka Horyal TV Berbera.